hal xeelad oo kaliya qorshe labaadna ma jiro daafacu wuxuu taagan yahay bartamaha garoonka oo Highland ayuu ciyaaraya goolhayo 40 sano jirana waxa uu wajahayaa weeraryahanada ugu fiican dunida marka dhinacaas laga eego koox kasta oo kamid kuwa ugu sareeya qaaradda Yurub waa inay si fudud uga faa'iideystaan oo weerar rogal celisa ku dilaan kooxda Bayern Munchen laakiin taa beddelkeeda Bayern waxay dhalisay in ka badan 100 gool laba xilli ciyaareed oo xiriir ah waxayna Bundesliga mar kale ka dhigeen horyaal hal koox oo kaliya ay maamusho Vicente Kompany waxa uu dhisay kooxda ugu awoodda badan kubadda cagta isagoo isticmaalaya nidaam u muuqda mid isdil xeeladeeda haddaba sidee ayuu ku sameeyay si aad u fahanto sida Vicente Kompany uu u bedelay kooxda Bayern Munchen waa inaan dib ugu noqonnaa sanadkii 2008 daafac dhexe oo daayar ah dalka Belgium u dhashay ayaa ku biiray kooxda Man City Sheikh Mansour ayaa markaas iibsaday kooxda koobabku waxay ahaayeen riyo meel fog ka muuqata qolka labiska waxaa joogay ciyaartoy magacyo waaweyn leh oo mushaaraad waali qaata Vicente Kompany waxa uu jiray 22 sano oo kaliya isla markii uu kooxda yimidna waxa uu dhaqmaayay sidii tababaro oo kale wuxuu si joogto ah ula hadlayay ciyaartoyda wuxuu abaabulayay kooxda ka hor ciyaarta xirada tababarka ayuuna sii joogi jiray si uu u daawado muuqaalada ciyaaraha wuxuu tababarayaasha ku wareerin jiray su'aalo ku saabsan boos qaadashada raacashada iyo xeeladaha daafaca dhexe looga baahan yahay marka uu wajahayo weeraryahanada halista ma uusan sugaynin tilmaamo ee waxa uu baranayay nidaamka laftiisa inta badan daafacyada 22 sano jirka ahi waxay ka walwalaan in orod ahaan laga dheereeyo balse Vicente Kompany waxa uu ka fakarayay xeeladaha ugu muhiimsan ee daafaca looga baahan yahay marka uu weeraryahanka hortiisa taagan yahay sanadkii 2011 Roberto Mancini ayaa siiyay calaamada kabtanimada ee kooxda 2012 kooxda Manchester City ayaa ku guuleysatay horyaalkeedii ugu horeeyay muddo 44 sano ah Kompany ayaana dhaliyay goolkii si dhab u go'aamiyay kulankii Manchester Derby ay la ciyaareen Manchester United waxa uu dabaaldegay qiyaastii 3 ilbiriqsi oo kaliya kadibna waxa uu bilaabay inuu amar siiyo daafacyada taasina waxay ku sheegaysaa wax walba oo ku saabsan shakhsiyadiisa kadibna 2016 Pep Guardiola ayaa yimid kooxda Manchester City halkaas ayayna maskaxda tababaranimo ee Kompany si dhab ugu kobcday Pep Guardiola ma tababaro oo kaliya ciyaartoyda ee waxa uu dhisaa maskaxdooda waxa uu baraa hababka loo joojiyo baasaska qaabka jirka iyo tilaabo kaste oo daafaca looga baahan yahay xilliga halista Kompanyna wax walba waa uu weeleynayay waqtigaasina dhaawacyadiisa ayaa sii kordhayay oo jilbihiisu waa ay daaleen murqihiisuna waa ay tabar dareeyeen markaste oo jirkiisu uu sii daciifayana maskaxdiisa ayaa xoogaysanaysay waxaa jiray muuqaalo muujinaya isaga oo dhaawac ka soo kabanaya oo meel dhinaca taagan isla markaana watanood yar isagoo aan tababaranayn balse daraasaad qaadanaya Pep Guardiola waxa uu dejinayay xeeladaha Kompanyna waxa uu istaagi jiray gadaashiisa isaga oo tababaraha isha ku haya ciyaartoyda kale waxay wareysiye ku sheegeen in Pep Guardiola uu mar walba isaga ka agdhawaa isla markaana uu fariimaha u soo marin jiray ciyaartoyda kale Pep Guardiola wuxuu la dhaqmi jiray sidii saaxiibkiisa tababaraha oo kale ma aha ciyaaryahan oo kaliya mar ayuuna si cad u sheegay inay qoran tahay in Vicente Kompany uu maalin ku soo laaban doono Manchester City isagoo tababaraha taasina ma ahayn kaliya waxa uu saxaafadda u sheegay balse waa uu aaminsanaa wuxuu arkay Kompany oo maamulaya tababarka xalinaya khilaafaadka qolka labiska isla markaana falanqeynaya xeeladaha kooxaha ka soo horjeeda xitaa marka lagu jiro safarkooda baska 2019 Kompany waxa uu qaaday koobkiisii afraad ee horyaalka Premier League waxaana uu ka tagay Man City kadib 12 sano uu kooxda joogay 4 jeer ayuu ku guuleystay Premier League 4 jeer League Cup-ka 2 jeer Community Shield-ka iyo 2 jeer FA Cup-ka waxa uu noqday halyeyga kooxda xitaa taala ayaa banaanka garoonka looga dhisay waxa uu jiray xilligaasi da'da 33 sano dhaqaale ahaan noloshiisu waa ay deganeyd waxaana uu sameyn karay waxay inta badan sameeyaan ciyaaryahanada isaga la midka ah waa inuu shaqo falanqeeyo ka helo telefishin mushaar fiican qaato iyo nolol raaxo leh balse Kompany wax taa ka soo horjeeda ayuu sameeyay oo waxa uu ku laabtay dalkiisa Belgium-ka kooxdii uu ka soo bilaabay waayihiisa wuxuuna galay xaalad ay adag tahay in ciyaaryahan isaga la mid ah uu doorto kooxda Anderlecht sanadkii 2019 waxay ahayd koox burbursan kooxda ugu guulaha badan Belgium-ka ayaa deeyma dhex muquranaysay ciyaartoy waaweyn ayay lumisay waxayna ku dhawaayeen inay u dhacaan heerka hoose waxay u baahanayeen cid badbaadisa waxayna heleen Vicente Kompany oo ah ciyaaryahan iyo tababare marka laga sheekeynayo waxay u muuqataa sheeko qurux badan halyeygii oo deegaankiisa ku soo laabtay balse dhab ahaantii waxay ahayd musiibo hoos ka hulaaqaysa oo sugaysa kaliya inay qarxdo bal waxaad ka fikirtaa adiga oo da'da 33 sano jira jilbahaagu ay sii daciifayaan isla markaana aad isku dayaysid inaad ka ciyaartid daafaca dhexe ee ciyaarta isla waqtigaasna aad tahay tababare qaybta nasashada ee ciyaartana aad ku ordaysid qolka labiska si aad u bixiso xeelado la xiriira ciyaarta kadibna aad garoonka dib ugu soo laabanayso si aad qaybta labaad ee ciyaarta u ciyaartid
bilowga xilli ciyaareedkoodii waxa uu noqday koodii ugu xumaa muddo 21 sano ka badan afartii kulan ee ugu horeeyay laba kulan barbara ayay galeen labana waa laga adkaaday taageerayaashu waa ay qaylinayeen maamulkuna waa u argagaxay Company waxa uu sameeyay waxa ugu daacadsan ee uu sameyn karay waxa uu ka laabtay doorkiisii tababaranimo isaga oo doortay ciyaaryahannimadii waxa uu qirtay inuu wax badan oo awoodiisa isku dayay balse ay socon weyday kadibna bishii Agost 2020 waxa uu qaatay go'aan si qarsoodi ah u bedelay mustaqbalkiisa tababaranimo isagoo 34 sano jir ayuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaaraha ma jirin wax sagoontin ah waayo xilligaasi ma jirin lacagta Sacuudiga ee haatan la doorto subaxdii xigtay waxa uu galay xirada tababarka ee kooxdiisa isagoo tababaro buuxa hal shaqo ayaana u furan waa inuu kooxda hagaajiyo labadii xilli ciyaareed ee xigay ma ahayn kuwa qurux badan koobab kuma uusan guuleysan Champions League-na kooxdu ma soo gaarin waxay xitaa guul daraysteen finalka Belgium Cup-ka oo rigoorayaal looga qaaday dad badanna waxay oran lahaayeen xilli fashilmay ayuu ahaa balse waxa jiray wax si hoose isu bedelaya Company waxa uu aaminay ciyaartoyda daayarta waxa uu fursad siiyay ciyaartoy badan oo daayar ah oo markii dambe malaayiin euro looga iibiyay kooxaha Yurub waxa uu keenay nidaam kubad haysasho ah oo kooxdii muddo dheer kubadaha soo tuuriyeen jirtay waxa uu ku adkeeyay daafacyadiisa inay kubadda ka soo dhisaan dhinaca gadaale xitaa haddii uu cadaadis ku adag yahay mararka qaar ciyaarihiisu waxay u akaayeen kuwo qurux badan mararka qaarkoodna khaladaad qosol ayay sameynayeen hayeeshee qaab ciyaareedka kooxdu waxa uu ahaa mid muuqda ciyaartoydu waxay baranayeen kubad cusub oo ka duwan tii ay sanada ka hor ciyaarayeen casharada ugu waaweyn ee uu Company ka bartay intii uu joogay caasimadda Belgiumka ma ahayn xeelado oo kaliya ee waxay ahaayeen awood iyo maamul sida loo eriyo caawiyayaal aan mashruuca rumaysanayn sida loo iibiyo ciyaartoy waaweyn oo diiday inay cadaadiska aqbalaan sida taageerayaasha loogu maya kubada dhaadheer iyo ciyaar xoog ah kuma laabanayno xitaa haddii aan 3 kulan oo xiriir guul daraysano wuxuu sidoo kale fahmay sida tababaranimadu ay u adag tahay wuxuu kursiga kaydka fariisiyay saaxiibadiisa wuxuu iska diray ciyaartoy daayar ah oo xitaa isaga laftiisu soo saaray wuxuuna wajahay madaxda kooxda isaga oo sharaxaya sababta ay kooxdu guul daro 3 year uga kulantay koox yar ugu dambeynna 2022 ayuu ka tagay kooxda Ancelotti isagoo aan wax koob u qaadin balse ah nin adag isla markaana caqli badan waxa uu si buuxda markan u yaqaanay nooca kubadeed ee uu doonayo inuu tababaro noloshiisa inta ka harsan kadibna meel uu safileen ayaa telefoon uga yimid waa kooxda Burnley xagaagii 2022 waxay ahayd koox lagu qoslo waxay hoos uga dhaceen horyaalka Premier League waxayna ceyriyeen tababare Sean Dyche nin laga dhex yaqaano muddo 10 sano ah kubadda cagta qaab ciyaareedkoodu waxa uu ahaa kubad aad u foolxun kubadda dhaadheer kubadaha set pieces-ka iyo koox inta badan gadaal taagan kubadaha ayay soo tuurayeen kadibna waa ay ka daba ordayeen dabcan taageerayaashu waa isaga qanacsanaayeen laakiin mulkiilayaashu maya mulkiilayaasha cusub ee Mareykanka waxay doonayeen isbedel buuxa waxay raadinayeen tababaro daayar ah aragti casriye wata geesi ah dad badan ayaana shaqadaas iska diiday kadibna waxay u bandhigeen Vicente Company wuxuuna dalabkooda aqbalay maalmo gudahood halkaas ayay shaqadu waali ka noqotay Company waxa uu yimid Burnley koox celcelis ahaan kubadda haysatay wax ka yar 40% Premier League xil ciyaareedkii hore waxaana uu yiri waxaan ciyaari doonaa kubad haysasho gadaal ayaan ka soo dhisi doonaa goolhayahana ciyaarta ayaan ku soo dari doonaa daafacyaduna weerarka ay qayb ka noqon doonaan wuxuu iibiyay inta badan ciyaartoydii waaweyneed waxaana uu keensaday 20 ciyaaryahan oo daayara kubaddana ku fiican dadka kubadda cagta Ingiriiska ka faaloodana waxay ku tilmaameen arrin waaliya qaarkood ayaa yiri Burnley xitaa play-off kama soo gaari doonto dadku waxay u arkayeen inuu yahay nin iska dhigdhigaya Pep Guardiola balse jilin ku sameynaya koox aan sidaas weligeed u ciyaarin balse wixii dhacay ayaa noqday mid ka mid ah xilliyadii aadka la isugu awood sheegtay taariikhda Premiership-ka Abriil 2023 Burnley ayaa xaqiijisay inay u soo dalacday horyaalka Premier League iyada oo 7 kulan ay harsan tahay waxay ku dhameysteen 101 dhibcood iyagoo horyaalka ku qaaday 10 dhibcood oo nadiif ah celcelis ahaan waxay kubadda haysteen 65% waa tiro la eg Bayern Munchen balse lagu sameeyay horyaalka Premiership-ka Ingiriiska oo adag kooxdii sanad ka hor ahayd midda ugu badan ee difaac gasha kubadda cagta Ingiriiska waxay haatan noqotay kooxda ugu weerarka badan ciyaartoydu waxay sheegeen inay tani ahayd isbedel dhaba waxay baranayeen luqad cusub oo kubadda lagu hadlo badankoodna si degdeg ayay u fahmeen markii Manchester City ay Burnley la ciyaartay FA Cup-ka xil ciyaareedkaasi Pep Guardiola ayaa u tagay Vicente Company kadibna si public ayuu ugu dhawaaqay in tababaro weyn uu dhashay Pep Guardiola waxa uu kaamiradaha hortooda ka sheegay in Vicente Company uu yahay mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiicnaa ee uu la kulmay sanadkaasi oo dhan xitaa waxa uu sheegay in mustaqbalka uu qaban doono shaqadiisa kooxda Manchester City ciwaanada warbaahinta ayayna arrintaasi aad u qabsatay kadibna waxaa timid xil ciyaareedkii xigay oo uu Premier League joogo waana qaybta ay dadka dhaleeceeya Company isticmaalaan si ay u yiraahdaan waa uu fashilmay dabcan wixii dhaxayna waxay ahaayeen wax aad u xun Burnley mar kale
ayay dib uga dhacday horyaalka Premier League waxay isku dayeen inay isla qaab ciyaareedkoodii hore ee geesinimada iyo kubad haysashada ku dheehnaa kula ciyaaraan kooxo ka qiimo badan 10 jeer waxaana toddobaad kasta lagu jabin jiray weerar rogaal celisa bishii Abriilna si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay inay u dhaceen heerka labaad taageerayaashii sanad ka hor ku heesayay magaca company waxay bilaabeen inay si cad isu weydiiyaan inuu garanayo waxa uu sameeyo iyo in kale hadda arrintaasi laba siyaabood ayaad u akhrin kartaa haddii aad u aragto tababare madax adag oo aan la qabsan karin xaaladda waxaad helaysaa fikrad cajiiba oo aad ku doodo balse haddii aad u aragto tababare diiday inuu bedelo waxa lagu yaqaano xitaa marka xaaladda kooxdu ay halis ku jirto markaas waxaad bilaabaysaa inaad fahanto waxa Bayern Munchen ay aragtay sababtoo ah waxaa jirta xaqiiqo aan dad badani ka hadlin kooxdii Burnley ee Facility Company uu hogaaminayay oo hoos uga dhacay horyaalka Premier League waxay haysteen fursadaha ugu sarreeya ee gool noqon karay marka loo fiiriyo kooxaha qaybaha hoose ee horyaalka waxay abuureen fursado badan kaliyana waxaysan lahayn ciyaartoy awood u leh inay dhameystiraan nidaamku waa uu shaqaynayay laakiin tayada ciyaartoydu ma aysan gaarsiisnayn heerkaasi mushaarkoodu waxa uu ahaa kii ugu hooseeyay ee horyaalka miisaaniyadooda suuqa kala iibsiguna waxay ahayd wax aad uga yar xitaa kooxaha heerka dhexe ee horyaalka waxay ahaayeen wax la mid ah koox heerka labaad oo lagu qasbay inay ciyaaraan Champions League waa run dad badani waxay arkayeen inuu kooxdiisa heerka labaad u la laabtay balse waxaa jira dad daawaday ciyaarihiisa si ka duwan jadwalka halka uu ku dhameystay mid ka mid ah dadkaasina waxay ahaayeen madaxda kooxda ugu facaweyn Jarmalka Bayern Munchen gugi 2024 Bayern Munchen waxay ku jireen xilli xulashooyinku ay dhib ku ahaayeen si aad u fahanto sababta ay Bayern u qaadatay tababare haatan kooxdiisa ula dhacay heerka labaad waa inaad fahantaa xaaladii ay Bayern ku jirtay xagaagii 2024 muddo 10 sano oo xiriir ah kooxda Bayern Munchen waxay ahayd koox aad looga cabsado horyaalka Bundesliga koob iyo 10 horyaal oo xiriir ah Champions League ayay ku guuleysteen 2020 xilligii Hansi Flick mar walbana ma ahayn xaaladuhu mid qurux badan hayashee mar walba heerka sare ayay joogeen kadibna dildilacyo ayaa soo baxay Hansi Flick ayaa tagay kadib saddexleediisii Julian Nagelsmann ayaa yimid horyaal ayuu qaaday kadibna si lama filaan ayaa loo eriyay Thomas Tuchel ayaa yimid isagoo loo arkay mid kooxda badbaadinaya laakiin xilciyaareedkiisii labaad Bundesliga waxa kaga guuleysatay Bayer Leverkusen waxaana halkaasi ku jabay rikoorka xiriirka ah ee ku guuleysiga horyaalka u muuqday mid aan dhammaan doonin qolka labisku waa u kala daadsanaa kubadoodina waxay noqotay mid caajisa kooxda waxaa ka buuxay xidiga gaboobay cabsidii laga qabayna hoos ayay u dhacday kadibna waxaa yimid xilligii la wada diiday Bayer kooxda Bayer muddo 60 sanadood waxay ahayd koox iyadoo dadka diida balse hadda waxaa diiday Florian Wirtz oo xilligaasi ahaa xidiga ugu fiican horyaalka Jarmalka Xavi Alonso tababarihii ugu cadcada isaguna waxa uu yiri maya Roberto De Zerbi isna waa uu diiday professorkii Manchester United isna waxa uu yiri maya xitaa Hansi Flick xilligaas diyaar uma ahayn inuu ku soo laabto maamulka Bayern Munchen waxay bilaabeen inay kala rogrogaan listiga tababarayaasha ay heli karaan iyaga oo yaaban mid ka mid ah ayaa yiri bal ka warrama Facility Company waa la wada aamusay haddana qof kale ayaa yiri laakiin soo kooxdiisa hoos uga ma dhicin horyaalka Premier League qof kale ayaa ku jawaabay laakiin daawada sida ay kooxdiisu u ciyaarayso waxay daawadeen muuqaalada waxayna arkeen Burnley oo kooxda Manchester City ka haysata kubadda 60% kulan Premier League inkastoo 3-0 guuldarro ay la kulmeen sababtoo ah waa ay dhameystiri waayeen fursadahoodii waxay arkeen qaab dhismeedka raacashada dhaqdhaqaaqa difaaciyada iyo sida garabyada weerarku ay u soo galayaan qadka dhexe waxayna arkeen wax aysan kooxaha kala arkin sida daraadeedna Bayern Munchen waxay Burnley siisay 10 milyan oo magdhow ah Facility Company waxay siiyeen heshiis 3 sanadood ah saxaafadda Jarmalkuna arrintaasi waxay ka dhigatay mid maadaysi ah xitaa haliyay hore u soo ciyaaray kooxda Bayern Munchen ayaa si cad u sheegay inuusan hubin in ay tani tahay shaqaalaysiin dhaba barnaamijyada doodaha kubadda cagta ee Jarmalkuna waxay ku tilmaameen mid ka mid ah shaqaalaysiintii ugu ceebta badnay taariikhda Bayern Munchen Company waxa uu soo galay shirkiisa jaraa'id ee ugu horeeyay isaga oo ku hadlaya luqadda Jarmalka oo fasaxa dhoolla cadeynaya isla markaana deganaan muujinaya waxa uu ka hadlay geesinimada kubadiisa waxa uu ka hadlay cadaadiska koox ahaan loo sameeyo waxa uu ka hadlay inaan la sugin waxa ay kooxda kala sameynayso ereyga xurriyad ayuuna ku isticmaalay ku dhawaad 6 jeer hadalkiisa saxaafadda Jarmalka ee sida weyn u eedeynayseena afkii ayaa juuqda gabay waxayna hoos u yiraahdeen aynu sugna inta uu ka baxay bishiisa malabka balse halkii uu jabi lahaa Bayern Munchen ayaa badisay 14 kulan oo xiriir dhammaan tartamada oo dhan bilowgii xilciyaareedkii 2024-25 qaab cajiib ayuu ku bilowday 18 kulan ee ugu horeeyay lagama badin waxayna Bundesliga dib uga qaadeen kooxda Bayer Leverkusen si fudud Harry Kane oo noloshiisa oo dhan lagu maadeysanayay inuusan koob qaadin ugu dambeyntii koob ayuu qaaday mana uusan joojin gool dhalintiisa xagaagii 2025 Bayern Munchen waxay ka banisiisay heshiis cusub oo ilaa 2029 balse koobabku ma ahayn sheekada ugu weyn waayo tababarayaal badan ayaa Bayer u qaaday koobab badan waxa muhiimka ah waxay ahayd sida ay kooxdan u ciyaarayso marka aad dab u daawato sababtoo ah waxa uu company garoonka ka sameeyay waxa uu ahaa wax aan kubadda cagta casriga ah hore looga baran company waxa uu leeyahay hal xeelad oo weyn ma bedelo marka uu la ciyaarayo kooxo kala duwan ma bedelo cimilada darteed
xitaa ma bedela marka kooxdiisu ay 4 gool iyo waxba ku hogaaminaysa ciyaarta xeeladiisuna waxay tahay cadaadis saar kooxda kale marka ay kubadda haystaan difaacaaga horey u qaad intii suuragal ah marka aad kubadda haysato 6 ciyaaryahan u dir dhinaca weerarka labadaada qadka dhexe ku dhaweey daafacyadaada gadaale kubadda ku soo cesho 5 ilbiriqsi gudahood marka laga qaato haddii aad gool dhaliso mid kala dhali haddii laga dhaliyana laba kala dhali intaasi waa tiirarka muhiimka ah ee falsafadiisa balse waxa ka dhigaya mid gaar ah waa waxa ka dhex dhacaya nidaamkaasi marka Bayern Munich ay kubadda ku haysato garoonka qaybta kooxda kale City Company waxa uu sameeyaa wax jahwareeriya difaac kasta oo dunida jooga waxa uu meesha ka saaraa sharciyada positionka ee caadiga ah ciyaartoydu sumalaha boosas joogta ah ee waxay leeyihiin aagag gudaha aagagaasna waxay ku haystaan xurriyad buuxda Harry Kane lambar 9ku waxa uu dib u noqon karaa gadaal si uu kubadda uga soo qaato gool hayaha haddii xeeladu ay sidaas u baahato Luis Diaz garabkiisa bidix waxa uu soo gali karaa qadka dhexe Mikel Olise garabkiisa midig isaguna mararka qaarkood wuxuu isu bedeli karaa lambar 10 daafacyada garbuhu waxa ay gudaha u soo gali karaan qadka dhexe ama weerarka iyaga oo noqonaya garab weerar ama xitaa boxka ayay soo gali karaan iyaga oo weeraryahan afka hore ah xitaa daafacyada dhexe waxa loo ogol yahay inay ka soo baxaan safkooda si ay u cadaadiyaan qadka dhexe ee kooxda kale taasoo mararka qaar keenaysa in hal xidig uu wajaho weeraryahanna khatara hal shardi oo kaliya ayaana jira qaab dhismeedka kooxdu waa inuu sii jiro haddii Harry Kane uu soo noqdo qof kale waa inuu booskiisa buuxiya mararka qaar waa Olise mararka qaar Serge Gnabry xitaa daafaca midig ee Lemar ayaa hore u soo dhaqaaqi kara si uu 10 ilbiriqsi u noqdo weeraryahan afka hore ah kadibna mar kale ay isu bedelaan difaacii Harry Kane daba socday waxa uu si lama filaan u arkaya garab weerar ku soo ordaya qadkii dhexe ee Diaz daba socdayna waxa uu arkaya daafac dhexe oo boxka sii galaya kooxduna si joogta ah ayay isu rogaysaa wax walba waa la qorsheeyay balse ma jiro qof meel iska taagan position ayaa la ciyaaraya hase yeeshee silsiladii xakamayn lahayd ayaa meesha laga saaray tirooyinka kooxdan Bayern Munich waa wax waaliya bishii Maarso 2026 kooxda City Company waxay dhalisay in ka badan 100 gool dhammaan tartamada oo dhan laba xilli ciyaareed oo xiriir ah waxayna Bundesliga celcelis ahaan ku dhaliyeen ku dhawaad 4 gool kulan kaste Harry Kane waxa uu noqday weeraryahanka ugu dhaqsiyaha badan ee gaara 100 gool shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub isaga oo ka horumaray Ronaldo Lionel Messi Robert Lewandowski iyo Erling Haaland Olise xilciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda waxa uu sameeyay caawinooyin ka badan garab weerar kasta oo ka ciyaara Yurub Luis Diaz oo taageerayaasha Liverpool 2 sano ka hor ay ku muransanayeen inuu yahay mid laga badbadiyay in kale hadda waxa lagu darayaa dadka u sharaxan Ballon d'Or-ka balse sirta ugu weyn ee xeelada Company ma aha weerarka ee waa kalsoonida wuxuu ka codsanayaa daafacyadiisa dhexe sida Upamecano iyo Jonathan Tah inay laba ula dagaalamaan weeraryahanada ugu fiican dunida iyadoo oo gadaashooda uu ka jiro space badan oo banaana wuxuu Manuel Neuer oo 40 sano jir goalkeeper ka codsanaya inuu banaanka u soo baxo xirada ganaaxa una ciyaaro sidii daafac afraad waxa uu daafacyada garbaha ka codsanaya inay gabi ahaanba ka tagaan dhinacyadooda oo ku kalsoonaadaan ciyaaryahan kale uu dabooli doono marka ay gudaha soo galaan koox kale oo iska caadiya tani waxay ku noqon lahayd qaliska xorin tababarayaal badan ayaana shaqadooda ku waaya wax tan ka yar balse Bayern City Company way u shaqaysaa sababtoo ah ciyaaryahan kaste waxa uu si sax ah u yaqaan qorshaha waxaana uu garanayaa waxa qof kasta uu sameeyo ilbiriqsiya kaste sababtuna waxay tahay inay tababar ku soo sameeyeen asbuuca oo dhan isla markaana ay ku celceliyeen dhaqaaqyada u muuqda kuwa iska caadiya marka ciyaarta la joogo xorriyadda ay ciyaartoydu haystaan dhab ahaantii xorriyad buuxda ma aha waa xorriyad ku dhex jirta xeelad aad u adag ciyaaryahan kasta meel kasta oo garoonka ayuu mari karaa laakiin waa in ciyaaryahan kale uu booskaasi daboola xeerku ma aha boosas joogta ah ee waa daboolis joogta ah taasi waa sababta Bayern City Company ay hadda u tahay kooxda ugu xiisaha badan ee la daawado ma aha oo kaliya inay farsamo badan yihiin inkastoo ay leeyihiin ma aha oo kaliya inay xeelada badan yihiin inkastoo ay leeyihiin waa ay xiiso badan yihiin sababtoo ah garoonka cidna meel iskama taagna mana jirto cid raacaysa xeelad lagu sawiray sabuurad kooxda oo dhan waxay u ciyaaraysaa si la mid ah ciyaaraha caruur iskuulka hayeeshee caruurtaasi mid kasta oo ka mid ah maskaxdiisa waxa ku jirta buug xeeladeed oo gaaraya ilaa 400 oo page waxa kale oo caawiyay waa in Company uu helay 3 weerar oo cajiib ah Harry Kane qaab ciyaareedkiisa haatan waa ciyaaryahanka ugu dhamayska tiran ee dunida waa lambar 9 iyo lambar 10 isku ah hal qof oo kaliya Luis Diaz waa uu dagaalamayaa xawaare iyo cadaadis joogtaana waa uu leeyahay Olise waxa uu sameeyaa goysmada ugu fiican Yurub oo dhan waana garab weerar u ciyaaraya kulan kasta sida qof kasta uu jecel yahay inuu daawado waxa ka dambeeya Joshua Kimmich iyo Alexander Pavlovich waxay maamulaan xakamaynta ciyaarta waxayna ilaaliyaan daafaca Upamecano iyo Jonathan Tah waxay daboolaan dhul aad u badan oo banaan Manuel Neuer isagoo 40 sano jir ah ayuu wali sameeynaya badbaadina waliya Company waxa uu siiyay nidaam u ogolaanaya inay ciyaaraan kubadoodii ugu fiicneyd ee noloshooda iyaguna waxay ku abaalmariyeen mid ka mid ah xilliyadii sida ugu awood badan la isugu awood sheegtay horyaalka Bundesliga taariikhda
dabcan nidaamkanina waxa uu leeyahay galdaloolooyin waxaana aragnay markii Arsenal ay jabisay highline-kooda iyaga oo kubadda dhaadheer ku jabiyay isla markaana si fiican u dhexmaray waxaynu aragnay waqtiyadii Champions League markii hal qalad oo dhinaca raacashada ahay uu isu bedelay xaalad ah inuu goolhayuhu wajaho weeraryahanka isaga oo kaligiisa waxa iyaduna cajiiba xeelada Company ma laha Plan B sababtoo ah Company wuxuu aaminsan yahay in Plan B ay isticmaalaan dadka cabsida badan haddii Bayer laga dhaliyo jawaabtu ma aha inay gadaal istaagaan oo ay natiijada iska yareeyaan jawaabtu waa cadaadiska oo la kordhiyo taasina waxay keentaa su'aasha ugu weyn kubadda cagta Yurub ee xilligan oo ah tababaradiida inuu bedelo xeeladiisa ma ku guuleysan karaa Champions League mise madax adayga Bayer ka dhigay kooxda ugu awoodda badan dunida xilligan ayaa noqon doona wax ka hor istaaga koobka ay dhabahan doonayaan City Company waxa uu 18 bilood gudahood ku sameeyay waxay adag tahay inay cid kale ka sameeyso kubadda cagta casriga waxa uu kooxdii la saadaalin karay kubaddeeda ka dhigay kooxda ugu xiisaha badan ee dunida wuxuuna ku sameeyay hal xeelad wuxuu ku sameeyay isagoo aan tanaasul sameyn waxaana uu sameeyay isagoo ciyaartoydiisa loo dhaqmaya si dad waaweyn oo qaangaar ah oo go'aan gaari kara halkii uu ka dhigi lahaa kuwa uu ku fuliyay waxa maskaxdiisa ku jira oo kaliya Pep Guardiola mar ayuu yiri waxa xidigaha ku qoran in Company uu maalinta tababaro Manchester City waxa laga yaabaa taas inuu ku saxan yahay laakiin Company waxa uu sameeyay sida ay wax walba u kala horeeyaan marka hore waxa uu ku guuleysan doonaa Bayer haddii uu Champions League kula guuleysto kooxdana kaliya ma noqon doonto doodu shaqada Manchester City ee waxa dhalan doonta dood ku saabsan tababaraha daada yar ee ugu fiican kubadda cagta waqtigan jeclow ama necbow balse hal arrin waa inaad qirtaa markii ugu horeysay muddo dheer Bayern Munchen mar kale waxa ay noqotay koox xiiso leh ninka arrintaas ka dambeeyana waa nin haysta biladda ku guuleysiga horyaalka Premier League isagoo ciyaaryahana isla markaana heerka hoose u laabtay taariikhdiisa tababaranimo waxaana uu taasi ku fuliyay hal xeelad haddii aad ka heshay falanqayntan fadlan nagu soo biir qaybta commentiga nagu wadaag aragtidaada ku saabsan waa kuma xeelad yaqaanka ugu fiican xilligan kubadda cagta Company Guardiola mise Arteta waxa kale oo soo socda muuqaal ku saabsan mashruuca Arsenal ee Arteta